سيفتي قالك كلام بحذي وده حقوقه الواه سياسة وقوينا هاي أو مقالك كده وندون توقعوا كودن بيجوي وأيه حاسس الشيخ محمود أنت روي مان صومالي ما أنتوا عم بريا لبنين هرت دجالك كوب وكده هوية دارد محمد عبد الله فرماتشو يا حسن الشيخ محمود أنت لبضع نقاب كيس كده قالين يقاب كي أكل عد كذا المقال كوشين يقود بدي حسن هرت أحمد مدوب نكلو كون من نقطه الكلام كسلامية يدني بان شخصيته البرية إن صهان سياسة اللهين سياسيين أهين إن أول واحد أكتر ما متين أجرون وينيس ويا حمدوا بدان كور مرو حمدوا بالسياسة دي سودها هويه gurigii markii Ethiopia aan jaajuuska u ahaa guriga aan Ethiopia ka deganaa ninkay iga soo daayay xildhibaanka iga dhigay Sheekh Shariif buu ahaa waa khiyaamay Xasan Turki oo sadigay waa khiyaamay inuu godano argagixis aslaan waa khiyaamay maamulkii Xasan Sheekh Maxamuud ugu horeeyay oo aqoonsado Jubaland markii aan heshiinay waa khiyaamay farmaajo adeerkay waa khiyaamay haddana Xasan baa khiyaamay hadda imaaraadka marka buu isagu ku xiran yahay Axmedoobe caruurtiisa imaaraadka la geeyay وإمارات كعروتي سادة إمارات كهيستا علشان ما دام ونخيانة بدن وإسبدل بدن ويحي سجن مركا كسماي ما أنت تحفظيها هل سنتمايو وأبغى موندو حرب كورية ثم والله هي واحد على مركا هل كاسو لي جبل حلبانا حوان سمعنا يا أبو لي دولة عصب جبل أنا وحلو لسه هذا قبل كجدو ومن ريحان ومن وين كيهاي markaas marka wali waa dadka cawaanta ay ku hareeraysan buu waxa ka daraamadaas oo leeyahay la heshiin doona aniga xasab heshiin doona waa naftiisu khiyaali ku dhisanaya marka imaaraadku wax fiican ma siiyaan ninka labaad waxa weeye Said Abdullahi Dani isaga imaaraadka haday dhahaan kaalay billahi ta'ala nahnu unique wallah waa ku waseena haday dhahaan ma dhahayo way aanu nin daaroodo kablalax oo hartiyo oo majarteen oo Maxamuud Suleymaan oo Ismaan Maxamuudi oo bahar baanta way ay wasaysan ولا ما قلنا بقى وسيسان مس قلنا بالعام بعد وسيسان ساس بتاعي أسوق مركو دقون كإيرمين وي أحمدو بحوالي كشك سنعين عروتي بكقاتين ساس هذا أحمدو وش قيستان لكن دني كما عايش كسنة هو دقون كيشري حسن استعماري حاج محمود استعماري وهذا إمارات كو استعماران السوق مركا ما بدها هي ويا أي وسيسان سجى بعض ضربنا حليه ما قلنا بارة بس قلنا بالعام الكاس مركا لبانين والشيء كالكا دنا دارون كما شقيان هذا دارون دنتو كشقيان بالواكاس انت السياسيين بالمعامل كهاد حمزه ميل مريي اساسي خاتم ميل مري لحايه واكو لبدو عساق ويس كديبن شلينا لبدو يا كديبناين هويه لبدو امارات مره ku shaqeysto dan daarood kama shaqeeyaan sababta ay maanta taageer la'aan ay u yihiin weeye anna markii aan ka haray anoo Yacquub Siyaada waa sababta Ilaahay ii bulaaliyay sababta waa maxay dadku cawaan ma aha inta ka in xadis lama soo taagnaan kartid waaya waxaan dul saaraya khudbadii Xashi Maxamuud wuxuu sheegay in ninkaasi Abdullahi Dani uu gondab ahaa 2 saacadoodna uu soo xulay 16 xildhibaan oo tulkiis ah uu u keenay buu Xasan khudbada ku sheegay Xasan xilliga ay isdagaalayeen maxaa Abdullahi Farmaajo iyo Xasan Sheekh baa dagaal ka dhaxeeyay Dani iyo Xasan Farmaajo dagaalba kama dhaxayn farmaajo iyo Axmedoobe wax dagaal oo ka dhaxeeyay male iyaga ka qabyaalada xuqanay kabla laxnima ninka kabla Xasan Maxamuud been dhisayeen marka Xasan waa sababtu labadaba u yasaway Xasan waxay isdagaaleen ninka la Maxamed Abdullahi Farmaajo waa taa weey Xasan Maxamuud la weerarayo oo lagu weerarayo hotelkii Jasiira oo TV-ga taagan ciidamada badbaado qaran oo soo helisay madaxweyne hore soo ah gurigiisa laga dhigay bahal antenada ka xeeyo oo baabuurtan qaraxyada iyo maartay meelaha antenada ka kaxaysa waa tii meesha beerka la iska garaacay Xasan Sheekh Maxamuud marka سو waxa uu haddana dastuurka uu leeyahay qof iyo cod farmaajo xireen wadanka qof iyo cod gaarsiyo wuxuu leeyahay maana garacto ma ladaya ninka ma waa rabay ana gaarsiinay Xasan marka taasa keentay inuu maanta Dani meedkiisa uu noo soo jiido walow aniga Dani uu sana kala reebino wixii boosaasa ka sameysay waaruntiis hal maalin baan anoo disho noqday oo Cali Saleebaan noqday oo Ismaan Maxamuud noqday oo Warsangali noqday ergada tiimka madaxtooyada bas oo anoo ku jiro با لحية طبعاً كحلبان بقى هل إرجو كليا دور تلو ساعة ساسا أولف وهنا حسن بعد نقل لف عندنا نقل لف مركا حسن وايد الدنيا يحكي عليه حسن استغلم بحمل الله رهاب والدنيا قبا هو الشيء كالكال قاعد نبت قويها وقاعد يحكي عليها في مركو حتى قطبانية ملحوينها نجيستي ملحوينها ما شاء الله بكلية حمزة وعاية وينعذركس وعاية حمزة عليك أنت صحراي وي سانوي وكاسة وصوبته حمزة ودقيا وي مركا دني قاد بوجعليها نكلا ده
حسن الشيخ محمود waxaan rabaa fursadda ka faa'iideysan halka ra'iisul wasaare xamse inaan fariin uga diro oo dhaho ra'iisul wasaare warkooga horta nimada adag baa tahay qoodha iyo xirada iyo xiniinta ninku waa in adeerkaayo telefoonka horta kow ka qabo muuqaalka hadda markaa dhameeyay ku soo wacaya telefoon ka qabo ninkan iyo xasan sheekh maxamuud ugu dhiib xisbiga qor qaybta xisbiga ruufiyaannimada suuq geynta marketing ku barta ninku ganacsadu ahaa qaybta marketing ka xisbiga u dhiib ninkan lama xanaaqsana dan daarood hami male mustaqbal siyaasadeed nin lama awzi wuxuu ka soo bilaabay waiter buu siyaasadda ka soo bilaabay sidii baa niman kala dhisteen aranjan baa isticmaalaysay xashiq maxamuud baa isticmaalay hadda imaaraad baa isticmaalaya waa gondhab XXL ah ra'iisul wasaare ninka telefoon ka qaba khayr allah ku siiye oo xasan ugu dhiib xasan soo waa yasaa anaa og xasan ugu dhiib xamar gee xisbiga ninka ka qor waaka waagi farmaajo yaa ka hub waaweynaa qoryaha guro halkan guro marka kubadda waxay dhex taalay maxamed cabdullaahi farmaajo iyo wixii dhex taalay ninka la dhoobaal laakiin nin baa xalaala muuqaalkan fursadda ka faa'iideysanay xamse inuu xalaal yahay ku sheegaya maxaa dhacay dheh xamse oo hadda farmaajo u jawaabay miyaa haysa nafa ma dhicin farmaajo oo xamse u jawaabay miyaa haysa nafa ma dhicin sababta farmaajo wuxuu ogyahay inuu ninkan ogaadeen uu nin adeerkiisa yahay kursigan isaga kuma talo xamsana wuxuu ogyahay hadda inuu maxamed cabdullaahi farmaajo nin adeerkiisa u yahay isagii xasan maadaama ay isku tiim yihiin isku urur yihiin inuusan dagaalka isagoo quseyn xamse waa ka dharagsan yahay ninkaas nin madaxweyne hore Soomaaliya soo noqday in adeerkiisa inuu yahay xamse waa sababta afkiisa uga qabsaday weeye farmaajo halkan ra'iisul wasaaraha waa ka bogaadinaya in 200 oo jeer uu ka aragti dheer yahay mulaax marka sidaa u fahma dagaalka wuxuu ka dhaxeeyay oo dastuurka la isku haysto maxaa cabdullaahi farmaajo iyo xasan sheekh maxamuud labadan nin baa ishardiyay oo beerka iska garaacay oo nin kasta ku loolamayay inuu wadankan qof iyo cod isagu gaarsiiyo xasanna maanta tiibi ku taagan yahay taada kale dadka kaliya oo waxooda lala leeyahay waxa dadka kale aan la lahayn waa hawiya sababtu waa maxay hadda maxamed cabdullaahi farmaajo waa nin reer Puntland waa nin reer Jubbaland dani sidoo kale xamse sidoo kale xasan waa nin galmudug iyo hirshabeel iyo gobolka banaadir iskale gobolka banaadir hantida Soomaaliyeed iyo hantida beesha hawiya lagu cunaa beesha caalamku wuxuu bixiyay marka laga tago hantida hawiya lagu cunaa oo canshuurta gobolka banaadir waa meesha lagu cunaa yaa dadka waxa been loo sheegay aniga teeda anaa leh taadana akula leh adduunka meel ay ka shaqeysa male hadda wiilka hawiya bal kuwa hawiyayo nala dhistay SSC Khaatumo faqashinigi baan qadeen oo farta ka leefina marka reerka kaliya xasan uu fahansan yahay xasan kama khaldana siyaasadda waa fahansan yahay reerka kaliya oo marka xildhibaan baa la soo diray qalalan gaari bay siinayaan staff bay siinayaan waxa beesha caalamka ma bixisay waa dhaqaalaha gobolka banaadir wey beesha caalamka maamul gobolka kasta goonidiisa wixii soo qaata waa waalantii yaa dadka been waxa laga dhaadhicino xawaanta waxa lagu orkacsan dadka kaliya waxooda lala cunana waa hawiye dadka aan waxooda lala cunana waa isaaqa iyo daaroodka waxba lama cuno ninkaas wixii halkaas ugu jira in uu leeyahay ana iskale aniga igama badla buu leeyahay waa inaan rabaa in xagga intay tagaan ee dadka waxooda iska daliiqdaan way rabaan marka meesha waa la isfahansan yahay marka labadana dagaalamay maxaa cabdullaahi farmaajo iyo xasan sheekh maxamuud wey maxaa cabdullaahi farmaajo waxa dilay axmedoobe iyo waxa dilay iyo ninka la dhaho dani saasa xasan keentay inuu maanta guuleysto oo la dhaho xasan macaanta iyo waayo waxa dul istaagay xildhibaanada horta niman xildhibaanada boqolka leh xasan iscasid xasan maalin kasta ma daawanaa soo baarlamaanka dhex taagan oo u khudbeynaya oo lax u sawiraya oo ay iyaguna aaminsan yihiin qof iyo cod ma rabtaan way taagaya laba gacmood bay taagaya banaanka u soo baxayaan mar waxay qancinayaan axmed madoobe iyo dani bay qancinayaan maadaama aysan aad madaxtooyada ugu dhundaloolin oo virus ay yihiin oo la iska ilaaliyo beerahoodii oo la soo boobay ay alkulistayaal yihiin marka boqol xildhibaan meeqa maqlaysaa ra'iisul wasaare xamse waxa laga qaadayaa kursiga boqol iyo 130 xildhibaan bay marayaan meeqa maqlays ma xamse la tuuro marka waxaan xildhibaanna ma waa niman nolosha ka dhacay wey hadda maxay ujeedada u qareemay TV-ga soo istaagaan wallahi wiiyo intaas ka goynaya wiiyo horma wiiyo warkayga maqlaysaa xildhibaankii tuug ah oo ummadda Soomaaliyeed danahooda ka hor yimaada oo danahayna ka hor yimaada oo caalamka ka hor yimaada iyo inaan maanta dawlad xanaqaaday aan ka hor yimaada inta ka go adon al-shabaab baa dilay maxaad ka qosay tug dhalay way oo idin wasax inta ka go garaadka ana ku amar ku siiyay xarfaanta gobolka banaadir ka shaqaystaan ku leeyahay waayo waxaan dul istaagayaa kuwaas xildhibaanada warkooda iga daayay waxaan dul istaagayaa sababta burco maanta ay u ololeyso oo mudaharaad weyn oo ballaaran ee beesha warjac u sameysay horta beesha warjac waa dhaq
meel laga sara ma leh laakiin intaan iyaga dul istaagin horta shaxdan nin baa ku faa'iiday la dhoo dhulbaanti baa ku faa'iiday qaabku ugu faa'iiday waa maxay dhulbaanti wuxuu ka faa'iiday haddii la dhihi lahaa nimanka ma jarteen baa la sii daynaya dhulbaantow adigana faysal cabdi bootaan iyo saraakiis siida xataa 370 dhulbaanta oo du ka qaadi lahaa dhulbaanta waran baa marka ilaahay ka siibay maanta maamulna waa helay shidan 30,000 wiil iyo 10,000 tiknikana waa haystaa buushaysaa badan ugu jirto buuq ma rabo qaylo ma rabo inuu cisaaq la hadlo ma rabo Soomaaliya dhex galay xataa daaroodka ka carar tag ninkii buugaaga waa weyn qaatay xamar baa lagu sheegay marka cisaaqi waliba nimanka dhulbaanta aadka isku laayeen oo dagaalka hore lagaga faa'iideystana habar jeclada ahayd habar jeclada marka saddexda xisbi ee Somaliland iyaga maanta hogaaminayo oo gacanta ku haya saddexda xisbi maadaama ay gacanta ku hayaan habar awashin ay mucaarad tahay oo mucaaradnimada looga hormaray oo habar jecel boqor buur madow odaga caloosha taangiga leh baa reerka masiirkooda gatay boqorkan youtuberka ah baa reerka masiirkooda gatay habar jecel maanta maxaabiistoodina way xiran tahay waxaana laga shaqeynayaa wiilkii dhulbaantay xabsiga ku jiray iyo in la sii daayo weli ra'iisul wasaare xamsa shaqeysanaya erana weli Soomaaliya ku xiran yahay marka habar jecel way baraarugtay hadda saddexda xisbina shacabku cod ka heli maayaan hadday mucaarad noqon hadda marka in xaashi ka saaxiibkay baa wareegaya meelahan hadda Yurub soo aaday xogaa jaaliyada wax u aruurinaysa habar jecel seefta galka kala baxay habar jecel maanta kadib marka waa mucaarad waa inay heshaa kursi ay hadda kadib ilaa iyaga kana la geliyay mawt إرّا ما أنتم مشارك وكجو سنكرا هدو مشارك وكجو أسطو بيش ماشى فردان جرحجز بقى نمان كان هبري يونستون وده يعلمي معيان ويوجي نبرش على الساقنا وأريرك كريه أو كرسي قلادو كفر ده أي ماشى عنتوي أنت أسوسر مع يا قلادو ماشى كفر ده بس صعود ضليق دم كوا كله وجهه هبرش على مركز الشان أنت مثلا قاعد جسنته هبرش على مركز عادو حوينا معارض نقطه إرّا أي معارض كل نقطه si ay markay iyaguna kursigooda ay u soo doontaan sababtu waa maxay silaaya kursi ugu dambeysay habar jecel xukuumadda hore waxay ka ahaayeen musan waxay ahaayeen isha wadaniyiin ba ka ahaayeen tanna wadaniyiin kala laga dhigay hadda markay baraarugeen oo dhawaridu kale wadaniyiin ba tii oo waxay kacaan ka tii saaxiibada habar jecel markay seefta gal kala baxay mucaarad bas ku diyaarisay taasaa keentay inay maanta koor yimaadaan marka cirra ay koor yimaadaan waxaas u maamaaya maadaama beertiga iyo isku dhacay iyo isaaq ay yihiin oo ragga dirirtu dhex martay adag ay yihiin dhulbaante iyo habar jecel maadaama ay yihiin waxa u maamaaya caaw dhulbaante islaam baa hadda kor waalaan jirtay qacday ahayd jinki baa laga saari waayey meel walba la maray wax walba la sameeyey maanta islaantii caafimaad waxa la arkay islaantii guursatay caafimaad oo reer dhaqan saxday warkaale jinki soo wareysanay islaantii waa ka baxay hor jinkaasi khayr buu qaba jinka looti waxa la warjino waa maasanta ma sha Allah gabadhii shaqaysanaysa arag waxa waa la gabadha ma ahayn gabadha aniga i waashay marka aan galay aniga i waashay marka dhulbaanta hadda ama habar jecel kursiga soo hesho kow ama irra meesha ha yimaado ama irisa dhaha soo ka haysto dhulbaante waali marka noqoto waali jinki baa ka tagay marka jinki xisaaqna waa sarkeen warnagada ninka waa waalay taasaa keentay inay habar jecel marka maanta danaysato oo ay kursigeeda doonato sababtoo ma soo aadi karto dhulbaante waa marada tuuray daarood ka carar kursi buu helay mishaarkiisu helay waa meesha caalamku is ka qaata isaga isaaq waa isku awood taasaa keentay marka habar jecel hadday baraarugtay marka waxay ku baraarugtay in ay waxba meesha u oolin adduunka ninni ka wax ku hela male marka anaa de garaadka habar jecel waxaan leeyahay wariyaa habar jecel meerada waa meeradiina wey qoodha ay xirada ay xinintay aniguna cirro saa mucaarad ugu noqotay ma mucaarad ugu ah cirro iyo mulaax waa israacinana idinkuna rag baa tihiin xabad koleba dhanka kama soo ridi kartaane khayr Allah idin siiye mucaaradka cadawga gudaha inaad noqotaan baa idinku soo dhaweynaya anu nin aad siyaasadina ugu dhundaloolaanahay oday saaxiibo badan idinkulana waa laakiin nin de reerkiisu ay ku weeyihiin ninka saa reerkiisu ku weeyaa dabcan anu de shiina culay ma noqon karo ilaahay baa ilaahay shiina culay oo suldaankiisa laga soo saaray ergaabo oo maanta wixii loo ka tumanaya anigu dani baa ka yeeli dani qabyaaladan ka yeeli waayo inuu kursiga Ciise Maxamuud qaato waxaan ka yeelaya dhulbaanta aligu warqasho yeeli maayo marka meeradan hadda kadib habar jeclana qayb ba ka tahay iyo Soomaali weyn iyo cid kasta oo wax iska celinaysa iyo cid kasta oo xaqooda dooranaysa hadda garaadka idin jooga barnaamijkan